ruux ka amaan badan ama lagu agdhigayo uur laguma qaadino adinka ma dhaqaaqine gacmo kuma adeegane ardoy sidoo kale Mustafa Abbas ayaa isagana wuxuu leeyahay qof sidaada loo dhigay dhabar laguma qaadino qalbigaad ku dhigantee rabo aanad hortay dhiman. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. soo dhawaada saaxiibayaal barta aan naga daawanaysaan waa Dhaymaale. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaad horey noola joogtayna nala wadaag fariimaha dhiirigelinta iyo like-ta. halkan waa bar lagu falanqeeyo afka iyo dhaqanka Soomaalida. maanta waxaan isla fiirin doonaa mowduuc xasaasi ah oo aan u bixinay sirta abwaanada. abwaanada runtii heer caalami adduunyada oo dhan waxay leeyihiin waxa ay dadka dheer yihiin taasoo ah helida ereyo inta badan dadka in wada aqoon iyo dhisida weero macna leh oo dadka xiise geliya. waxa inta dheer waxa ka dhigay suugaanta inay ku xiise gelido ay ku soo jiidato ayaa maanta isla arki doonaa oo loo yaqaano farshaxanka. runtii abwaanada ereyada inta badan isticmaalaan waa ereyo ma aragtay la yaqaano sheekada wax ka dhisayaanna waa sheeko ma aragtay aad hore u maqashay waxa ayaga martay u gaar ay wax kama sameeyaan in hees ama gabay ama geeraar hore loo sameeyay hal abuur kale uu sameeyay mid kalena isla ma aragtay sheekadii uu ka sameeyo maansa ka sameeyo adna ay ku xiise gelido ayaa waxa loo yaqaanaa farshaxan. waxa kaaga dhigay inay ku xiise gelido waa farshaxan. inta waxaad maqashaa gabay cusub baa soo baxay hees cusub baa soo baxday geeraar cusub baa la sameeyay mana jiro erey aadna aqoon oo ma aragtay la isticmaalay ama sheeka adiga aadna garaneyn oo meesha lagu isticmaalay. sheekooyinkeena ama aragtay waxa inta badan maansa laga sameeyo waa jacaylka arrimaha bulshada wadaniyada buraarujinta dagaalka waxaas inta badan laga sameeyaa intaas baa ma aragtay hal abuur kasta wuxuu ka galaaya meel ma aragtay isaga u gaara aadna kaaga dhigayso ma aragtay wax cusub kaaga dhigayso waxa ma aragtay adiga kaaga dhigay wax cusub maasaad hore u maqashay ama sheekaad hore u maqashay erey aad taqaanay in hal abuur kale wax ka tiriyo adna ay ma aragtay ku yeelato dhadhan ay ku yeelato wax cusubna ay kula muuqato taas loo yaqaan farshaxan. ana zul taagna tusaalaha dadka tusaale wax ku fahmaayay bal aan tusaaleyno waxaa jira hal abuuro badan oo ma aragtay maansa u sameeyay ama ka sameeyay qof ay amaanayaan oo ay ku sheegayaan inuu yahay qofka ugu fiican ee adduunyada joogo ay maansa ku leeyihiin adiga kaliya ah ruuxa ugu mudan adduunkan maanta aan noolnahay. intaasoo maansa ayaa laga sameeyay adna ma aragtay marka aad daawanayso ama aad dhageysanayso ama aad akhrinayso waxay kula muuqanaysaa angol ama ma aragtay xeel dheeri ninkan kaliya taa u isticmaalay sheekada taa ma aha farshaxanka ay ku kala duwan yihiin isla intaaba in badan la soo ururiyay ama ma aragtay laga gabiyo laga maansooday mid aan kugu soo qaado. abaan Maxamuud Axmed Yaasiin Dheeg maansadiisii ama heestiisii sida canabka beeraha beedka u dambeeya wuxuu leeyahay adba wiil cod karaayo aqli iyo aqoon loo aqli taliya maanke ciidan caawa kula simo ifka cagama soo dhigin cidi keeni mayso adiga ay cajabiye. wato hore waa maana isaga Maxamed Axmed ma aragtay amaanayo leh inay haytin iyo cirib cadi ku dhameeyo ceebka ilaalshay iyana intaan bay ku amaanaysaa ciidan caawa kula simo ifka cagama soo dhigin cidi keeni mayso adiga ay cajabiye. xitaa aniga ma oo kaliya taa ma cid kale oo og adiga ma aragtay mas'alkaaga cid keeni kartaa ma jirto ayuu dhig leeyahay. sidoo kale Sangub wuxuu leeyahay heestiisii ardo abwaan Sangub isagana wuxuu leeyahay ruux ka amaan badan ama lagu agdhigayo uur laguma qaadino adinka ma dhaqaaqine gacmo kuma adeegane ardoy adoo kale ma aragtay ifka cagama soo dhigin waay waa untiyo ma aragtay farshaxan la geliyo angol kale looga imaaday waay. sidoo kale Mustafa Abbas ayaa isagana wuxuu leeyahay qof sidaada loo dhigay dhabar laguma qaadino qalbigaad ku dhigantee rabo aanad hortay dhiman adoo kale ma helayo waay. hees ma aragtay ku jirtay alfuleel waliil amin camaari oo iska wada qaadaan baayana waxay leedahay adoo kale ma uu mane uur hooyo ma seexane iftiinkeygiyo adduunkay dhamaan adaa ii ahe adkay oo ogow. sidaas oo kale hees maartay afartobnaad ay Deeq Axmed qaado iyana waxay leedahay ma ogtahay adduunyada adiga mid kala mid ahe hadaan uurka lagu sidin ubax ii baxayo. waxay leedahay adiga mid kala mid adduunka hore ma aragtay uma soo istaagino lama dhalin hadaan uurka lagu sidin inta hadda uurka ku jirto ba ma aragtay laga yaabaa qof kala mid ah in la helo laakiin inta aniga ma aragtay ogaalkayga ay leedahay ma aragtay intii adduunyada hore u joogtay
kumuu jiro qof adiga kula mid ah lagama soo helaayo heestii kale aad taqaaneen asluub badan oo ammaan badan oo iyana waxay leedahay inta aan u manaa abidkay adoo kale uunkan kuma aragay asluub badan oo ammaan badan oo waa un intaas farqa u dhaxeeya ma aragtay farshaxanka lagu kala duwo suugaanta ayaa ah sida uu hal abuurka u dhigo maansadiisa ee ma aragtay hal abuurka Soomaaliyeed ama heer caalami ma jiro wax isaga uu la imaanayo isaga u gaara eray isaga u gaara uu la imaanayo ama ma aragtay sheeko cusub oo ugub ku ah oo ma aragtay hore looga maansoon lagama maansoodo wax intii jiray baa la qurxiyaa farshaxanka lagu qurxiyaa hadda muuqaalka wax ka faa'iideena la wadaag hadii aad ma aragtay aad qabto faali ma aragtay aad noo hayso wax talaan nugu la wadaag halka faalada hoose gaarsii saaxiibada isleedahay alla ilaahay way mudan yihiin inay ogaadaan